Dangorayo degmo ka mid ah gobolka Nugaal muddo ayay u soo dhabar adeegtay duruufaha biyo la'aantu keentay waxaana qaati laga istaagay dhaankii u dalandooli jiray kaliyaxeed oo ah ceel biyo yarooda kaas oo mararka qaar khatariba ka dhalan jirtay waa la isku leyn jiray waa la isku ciriiri jiray buuq baa ka dhici jiray dagaal baa ka dhici jiray biyo la'aan in lagu oomo baa ka dhici jirtay daalkaasi kuma ekayn degmada Dangorayo oo kaliya waxaana baahidaasi la qabay deegaamada miyigu ka mid yahay ee ku hareeraysan degmadaasi reerka oo mano biyo haraado caqa waxa la oran jiray biyaanu weynay baabuur waxa geey joogta kaliyaxeed baa dabada kula jira biyaba male laba habeen buu ku maqnaan jiray kolkii in muddo ah degmadani ku jirtay baahidan ceelka riiga ah ee laga qoday magaaladuna uu noqday dhegda cara ayaa la qaaday tallaabo laga maarmi waayay waa 1 Agost 2021 xilliga oo mas'uuliyadda biyaha degmada Dangorayo lagu wareejiyay shirkadda Danwada oo ah mid ay hindiseen aqoon-yahano ka soo jeeda deegaankan dawladuna garab siisay bacdi ragaas oo isxilqaamay oo iyagu dadaal la yimi ayaa waxay keeneen fikir ah inay ceelka ay biyaha magaalada gacanta ku qabtaan annaga maamul ahaan waxaan sameeynay waxaan ku wareejinay biyaha magaalada mandate waxaan u siinay inay iyagu maamulaan xilli loo hanweyn yahay oo haraad loo qabo biyo nadiif ah ayaa shirkadda Danwada la wareegtay mas'uuliyadda biyaha degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal falkii koowaad ee la qaaday waxa uu ahaa in la sameeyo cilmi baaris ilaa sahan la'aan reer Maguure dhammaan baahida horumarineed ee biyaha ee degmada Dangorayo ayaan daraasad ku sameynay oo dhaqaale badan ku baxday waqti badan iyo juhdi la geliyay dad aqoon-yahanaa injineero ku takhasusay maxay tahay laga hawlgeliyay daraasad dhammaystiran oo min ilaa shuuci weynaa oo maxay tahay ceelashii iyo haamihii iyo min ilaa xaafad kasta tuubada la gelin lahaa iyo biyuhu meeshay mari lahaayeen iyo qaabka systemkaasna u shaqayn lahaa daraasad noocaas la sameeyay daraasadda natiijadii ka soo baxday ayaa loo qorsheeyay in loo kala hormariyo sida ay u kala mudan tahay waxaana kow laga dhigay in hor iyo horaan xoogga la saaro sidii bulshada degmada loogaga faa'iideyn lahaa ceelka xilligan qodan iyadoo oo la rakibay warshad biyaha sifaysa marka ugu horeysay si biyaha hadda aanu haysano ay u noqdaan kuwa say tahay looga faa'iideysto inaanu hirgelino warshad biyihii sifaysa oo tayo sare leh si looga raysto biyihii meesha fog laga soo dhaaminayay oo xarig marka ahaa oo markii biyuhu yaraadaan reerka biyo la'aanta ku dhacda ay 5 bari sugayeen inaan samayno biyo sifaysan oo saacadda qofku dalbado heli karo oo carruurtii cabbi karto oo wax lagu samaysan karo shirkadda Danwada waxa ay dadaal iyo tacab dheeraad gelisay in degmada Dangorayo oo muddo hamuun u qabtay in ay biyo ka haraad beesho xilligan ay noqoto degmada koowaad ee helaysa biyo nadiif ah dhammaan Puntland warshadani kolka ay biyaha safayso oo ay noqdaan kuwa macaan waxa ay isu dhaafisaa haamo kayda oo halkan yaala kuwa ayay isu daba maraan booyadaha magaalada biyaha u daabula booyadahaasi habka ayay isugu dhaafaan ceelka iyo magaalada iyaga oo sidan magaalada ula dhex wareegaya biyo macaan shirkaduna mar horeba ayay hoosta ka xariiqday in guri walba la gaarsiiyo biyahaasi bulshada degmada Dangorayo dadaal dheer kadib waxa ay maqsuud ku yihiin helitaanka biyo nadiif ah waa biyo macaan oo motorka laga soo darsada baraagta lagu shubta fuustooyinka lagu shubta miyiga la geeyaa aad iyo aad ba loogu baraaray arrintaas qaar ka mid ah xaafadaha magaalada waxa laga bilaabay in la geliyo beeba biyaha qaada si guri walba loogu dusiyo qasabad u ka cabo waxaana qorshaha dhow ku jirta in dhawaan la dhammaystiro arrintaasi sida shirkadda Danwada noo sheegtay qaybintii weli in xaafad kasta la geliyo qalabkii waa soo socdaa oo saacadihii iyo qalabkii kaleeto oo facility loo baahnaa waa la soo wadaa laakiin ilaa iyo wax ka mid ah magaalada pipe baa yaala oo quality fiican oo duuri bala oo qaybintii kaliya u baahan tahay kuma ekayn magaalada inta ka faa'iideysatay biyahan macaan haantan waa kaydka biyaha ee darka xoolaha xilligan aan la kulanayna waxa cabayay geelal kuwaasi oo nooga waramay isbeddelka xilligan iyo kii hore halkaan hadda maanta dhaweyd doraatii ka horeysay doraadiyo tii xigtay geela isugu yimi waxa weeye wuxuu ahaa ilaa iyo 20 kadib baa maalin isugu yimi duhur laguma tukan isagoo jooga ka hor buu fulay wax ka yar 3 sano ayaa shirkadda Danwada dadaalkii dheeraa ay ku qabatay biyahan lagu baahi baxay madaxda degmada Dangorayana
waxa ay uga mahad celiyeen hawshan la qabtay. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa raggaas gacanta ku hayay shirkadda dadaalkii ay muujiyeen iyo dulqaadkii ay la yimaadeen iyo iyagoo meel cidla wax ka bilaabay haddana maraya stiil in maanta reer kasta oo Dangorayo jooga xilligu u baahdo intuu waco hooyadaha shirkadda Danwado ay biyihii u keenayaan. marka laga yimaado degmadan Dangorayo ee ku baahi beeshay inta kale degmooyinka Puntland waxa ay u tahay duruus waxbarasho oo mudan in wax laga barto. Danwada waa shirkadda shaqadan haysana waxa ay noo sheegeen inay diyaar u yihiin gudbinta waayo aragnimadooda. marka diyaar baan u nahay cid kasta inaan uga faa'iideyno nidaamkan wayna dhacday inay noo yimaadaan degmooyin kale oo halka dad aan ugu tababarnay xataa hay'adaha biyaha ka shaqeeya way noo yimaadeen wayna weydiiyeen inaanu diyaar u nahay inaan dadka u tababarno degmooyin kale waxaan ku niri si mutadawacnimo ah baan dadka u tababaraynaa oo maxay tahay barnaamijkan aanu inay koobiyeystaan oo meelaha kala geystaan diyaar baan u nahay communitiesku waa isku mid